wafdiga ballaaran ee uu hogaaminayay gudoomiyaha golaha wakiilada iyo dhammaan mas'uuliyiintii aanu halkan ugu nimi iyo shacabweynaha deegaanka Ceelbu dhammaan waxaanu leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxay noo tahay maanta maalin aad noo farxad gelisay soo dhaweynta ballaaran aanu kala kulannay deegaankan Ceelbu iyo magaalada tan Ceelbu. waxaanu u haysanay magaalo kooban, waxaanu u haysanay shacbiyad kooban inay ku nool yihiin. waxaa noo muuqata inay ka ballaaran tahay kana shacbiyad badan tahay deegaano badan iyo magaalooyin badan oo degmooyina inay ka shacbiyad badan tahay. waxaanu sidoo kale aanu aad ugu hambaliyaynaynaa inay qayb ka ahaayeen dadkan halkan ku dhaqan deegaankan rag iyo hablaba inay qayb ka ahaayeen hawshii qiimaha badnayd ee aynu isugu wada nimi deegaanada tan ee dhammaystirkii ciidamadii ka soo wareegayay deegaanada Somaliland. aad baan iyadana uga mahadcelinayaa hawsha adag iyo qaybtii ay ka qaateen. annagoo shacabkayaga iyo dadkayaga u turayna muddada dheer bacadka taagnaa raaligelinna ka bixinayna wakhtigii dheeraa ay taagnaayeen iyo daahidayada. waxaan hadalka aan ku soo ururinaya oon ku soo koobayaa waxaannu diyaar u nahay inaannu intaannu idinla joogno sida uu wasiirka maaliyaddu uu tilmaamay inaannu gaargaar iyo si guudba aannu idiin aragno, inaannu wixii aannu qaban karno intaannu joognana aannu qabanno, wixii culays nagu noqdana inaannu tala dib ula laabanno oo aannu kula noqonno caasimaddii iyo maamulka intiisii kale. ilaahay idinkii